muqdishay wanaag maankan ku hayay marka hore salaam kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan waa saaxiibkeen Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo idin kala soo hadlaya daar sare oo ku taala meel aan sidaas ugu fogeen wadada Makka al-Mukarrama caasimada dalka Soomaaliya waqtigu sida muuqaalka aad dareemaysaan waa xilli habeen maameysa 8 qadar dhowr iyo 20 daqiiqo jawigu waa mid degan magaalada Muqdisho oo maraaxil kala duwan soo martay tan iyo burburkii dawladii Maxamed Siyaad Barre waxay soo kabataba waqtigan ayaa kala duwan iyo dadka caasimada ku nool waxay ku sheegayaan in waliba caasimadu ay ka soo kabanayso oo ay isku dayayso inay la tartanta caasimadaha maray dhalinyarada ayaa meel la sheekaysatid oo ay ku sheegayaan isbedelada caasimada Muqdisho ay ku talaabsanayso sidoo kale markii aad meelaha jawiga oo kala soo korto soo gasho tusaale hadii daaraha sarsare ee bartamaha magaalada caasimada ku yaala hadii aad sidoo kale u soo korto indhaha ay qabanayaan maal aad u qurux badan oo geeska dhinac kasta oo caasimada kaaga soo ifayso sidoo kale gacanta mudug waxa naga xigaa badweynta Hindiya oo iyaduna ku muuqanaysa in kastoo hadda waqti habeen ay tahay waana sidaas loo sii arkeenin laakiin haddana xilliyada galabkii ama maalmihii ayaa iyaduna halkan ka arki kartaa marka Muqdisho waxaan dhihi karnaa waa caasimadda dalka Soomaaliya marka intaan ka sii ballaaran laakiin rajaynayna inta muuqaalka daawanayso ay mahadsan yihiin